hay'adda wadaniga ee aado ayaa waxay tababar soconayay muddo 7 maalmood ay u soo xidhay 14 kalkaaliyaal caafimaad oo xanaanada xoolaha ahi. tababarkani oo ku saabsanaa kor u qaadida xirfadda kalkaaliyayaashani ayaa waxa maalgelisay hay'adda UNOCHA SHF waxaana fulinaysay hay'adda aado. tababarkani ayaa kalkaaliyayaashani ka faa'iideystay waxay ka kala socdeen gobolada Sanaag iyo Saaxil. ugu horeyntiiba xiritaanka mashruucani waxa ka hadlay maamulka hay'adda aado ee gobolka Togdheer Khalid Cabdullaahi iyo sidoo kale gudoomiyaha guud حسين إسماعيل جامع وحنيفة فاهيين مشروعني waxaynu maanta joognaa soo gunaanadkii iyo xafladii soo xiritaanka hawshii muddada socotay ee ahayd aqoon kordhinta kalkaaliyayaasha caafimaadka xoolaha kuwaas oo laga soo kala ururiyay labada gobol ee ah Sanaag iyo Saaxil. mashruucan waxa maalgelinayay SHF qolada UNOCHA SHF waxaana fududeynayay oo maxay ahaydey hirgelinayay hay'adda horumarinta beeraha ee magaceeda marka la soo gaabiyo loo yaqaano aado. waxa sharaf noo ah dadka 14 qof ee sida tayeysan loo soo xulay hore u lahaa khibradda iyo aqoonta kalkaalinimo ee xanaanada xoolaha inaan maanta siino una soo gabagabayno aqoon kororsigoodii kaasoo ahaa in kor loo qaado aqoontooda. oo macnaheedu waxa weeye dadku markay aqoon qaataan batch 1 batch 2 batch 3 kolbada xanuunadii way isbedelayaan, dawooyinka way isbedelayaan. imikana xaalada abaareed baa dhacay, xoolihii waa jilicsan yihiin. in kolba xaaladda jirta lala talaabsado. alxamdulillah si fiican buu noogu soo dhamaaday. idinka maadaama halkan la idinku tababaro maanta dee aqoon leedin siiyay macnaheedu ma aha inaad goboladiini ka timaadaan halkan dhowr cisho joogtaan wax la idin sheego dhulkii aad ku noqotaan ee waxa weeye dawada la idin siiyay iyo aqoonta la idin siiyay adeega bartii loogu talagalay inaydun gaarsiisaan. hawshan oo qayb kamid ah ahayd ka jawaabistii abaarihii ka dhacay dalka oo runtii ah xagga xoolaha bal sidii wax looga geysan lahaa xagga caafimaadkooda. farinta anugu aan idin faraya waxa weeye dalkeenu wuxuu ku tiirsan yahay dhaqaalihiisa kooda xoolaha weeye. xoolihii noolaa abaartii imikana taagan sanadkii horena xoog dalka u soo martay in fara badan oo xoolihii dalka joogay ah ayay baashaas u xaaqaday. xafiis ahaan waxaanu ka fikiraynaa in la helo information isku xidha ama xog ku saabsan xilliga uu qofku u baahan yahay hantidiisa inuu u bedelo si kale. dhakhaatiir waxaa laydin tababaray dhakhaatiir xoolaha ah inaad irbadi iyo dawadaasun daba taagnaataan lama rabo. mar haddaad tababaran tihiin waxaa loo baahan yahay wax weeyaan in qofka xoolo dhaqatada aad ka caawin kartaan macluumaadka kale ee aanu isagu haynin ee ku saabsan bilmetal saadaasha hawada kale in la fahmo neefkanu mar buu u baahan yahay adigoo og inay abaari soo socoto inaad kaash u bedesho gebigiisa inaad iibiso. waxaa yaraanaysa khasaaraha qofka ama qoyskaasu ay abaartu u geysanaysaa la yareynaya. geesta kale xubno kamid ah kalkaaliyayaashani caafimaad ee ka faa'iideystay tababarkani ayaa waxay hay'adda aad uga mahadnaqeen mashruucani ballaadhan ee kor loogu qaadayo tayada kalkaaliyayaasha caafimaadka ee xanaanada xoolaha. waxaan u mahadnaqayaa Ilaahay marka hore, marka labaad waxaan u mahadnaqayaa hay'adda aado oo noo suurtagelisay inaanu ka qayb galno tababarkan muddada soconayay ee ahayd baraarujinta wixii aan hore u baranay. waxaanu baranay wax aad iyo aad u wanaagsan marka aad baan u soo dhaweynayaa. waxaan u mahadcelinayaa hay'adda aado iyo macalinkayaga qaaliga oo maxaan ku raadayay waxaan hore u soo dhiganay dibna ugu baraarujiyay. anigu waxaan ka yimid Sanaag maxaan ku raadayay dawooyin badan oo aan hore u arki jirin baan hadda la tusay oo maxaan ku raadayay aan tababar ka qaatay oo aan garanayaa hadii maxaan ku raadayay birka maanigu hor yimaadaan. gabagabadii xiritaanka mashruucani waxa soo gabagabeeyay hadaladii laga soo jeedinayay isuduwaha wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga gobolka Togdheer waxaana uu yiri waxaad adigoo dhakhtarka xanaanada xoolaha wuxuu daweeyaa waxaan hadlayn qofka hagrada waxa aan hadlayn isaguna ma hadlo si kala laga dhigaa. waxaan aad iyo aad idinkula dardaarmayaa aqoontii sidii la idin siiyay inaad u siisaan oo aad u dabaqdaan deegaanadii aad ka timaadeen aqoontii aad halkan ka qaadeen iyo tii aad hore u lahaydeen aad siisaan. isku soo wada xooriyo hay'adda wadaniga ee aado ayaa waxay ka shaqeysaa horumarinta beeraha iyo deegaanka. waa Khalid Bakayle fogaan aragga xorta Star TV Burco.